guddoonka labada aqal iyo xildhibaanada labada aqal martida noo joogta ee bulshada rayidka iyo culimaaddin ka socota guddiga madaxa bannaan ee dastuurka iyo guddiga dastuurka ee baarlamaanka labadiisa aqal ay leeyihiin dhammaan bahda meesha joogta assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu. salaan kadib waxaan u mahad celinayaa guddiyada ka soo shaqeeyey dastuurkan oo runtii markaad akhriso aada dareemayso in luuqadda qaanuuneed ay adeegsadeen ee aada u sarreyso si fiicanna u soo turxaan bixiyeen. intaa kadib waxaan rabaa inaan toos u galo doodeyda. cutubka koowaad qodobkiisa saddexaad faqrada shanaad haweenka xildhibaanada ay halkan ka soo jeediyeen waxaan rabaa inaan ku sakan gareeyo kuna taageero in codsiga ay soo jeediyeen loo tixgeliyo oo kootadooda farsamo kastaba ha ku timaadeen la caddeeyo waxa ay leeyihiin si beritoole aan garabka loogu riixin. tan xigta qodobka shanaad isla cutubka aan hadda ku jirna waxa uu ka hadlayaa afka rasmiga ah ee dalkeenu leeyahay kan koowaad iyo kan labaadba. runtiina soomaalidu waxa ay degan yihiin deegaano kala duwan, lahjado kala duwanna way ku hadlaan oo ka badan laba lahjadood. halkaana waxaa ku qoran laba lahjadood oo keliya. lahjooyinka kaleete ee deegaanada soomaaliyeed looga hadlo ama ummad ka mida ummadda soomaaliyeed ee geyiga soomaaliyeed degan ay ku hadlaan iyaga xaggee looga tegey waa iga su-aal. tusaale haddaan u soo qaatana deegaanada iyo dadka aniga aan matalo mayna kuma hadlaan, maxaatirina kuma hadlaan, ee xaatiriyay ku hadlaan. waxa aan ka hadlaynana waa dastuur ummadeed. dastuur ummadeedna lahjad laguma qoro ama afguri. haddii markaa lahjad la qoraayo waxaan soo jeedinayaa oo laga maarmaan ay noqoto in la yidhaahdo afka rasmiga afka soomaaligu waa maay, maxaatiri iyo xaatiri. runtiina waxaan bogaadinayaa soona dhoweynayaa isla qodobkaas shanaad faqradiisa labaad ee la soo kordhiyey ee guddigu soo kordhiyeen oo dhahaya dowladda federaalka soomaaliya waxay daryeeshaa, ilaalisaa, isla markaana hormarisaa afka soomaaliga iyo sugaantiisa. in la yidhaha afka soomaaliga, suugaantiisa iyo lahjadihiisa kala duwan oo meeshaas lahjadaha kala duwan si kooban loogu sheego. qodobka lixaad isagana oo ka hadlaya calanka iyo astaanta qaranka. astaanta qaranka halkaanay noogu tilmaaman tahay waxyaabaha ay ka kooban tahay. hase ahaatee lama isticmaalo maxaa yeelay qaybaha ugu dambeeya markii aad fiiriso bejka sagaalaad qaybta ugu horeysa faqrada ugu dambeysa diilinta hoose ee dastuurka dushiisa ku taalla wuxuu sheegayaa diilin cad ay ku qoofalan tahay. yacni markii laga soo sheekeeyo calankii iyo shabeelkii iyo warankii iyo caleemihii waxaa ku qoofilanaa la yidhi diilin cad sidii nuqulkii hore ku jirta. nuqulka dambena wuxuu qorayaa maydhax cad, laakiin lama isticmaalo. oo markaa fiiriso dastuurka baalka ugu dambeeya kan ka horeeya
jadwalka qaybta B astaanta ku taala diilinta waa hurdi marka sidaa darteed in la bedelo oo dastuurka sida uu qoran yahay iyo sawirka ku yaala ay isqaataan sidoo kale manhajka wasaaradda waxbarashadu ay samaysay cilmiga bulshada fasalka afaraad cashirka ugu horeeya ee ka hadlaya astaanta isaguna ardayga Soomaaliyeed manhajku wuxuu barayaa oo dalkeena inay hurdi tahay waana kaasi warkiisa idin muuqda in iyadana manhajka laga saxo isla markaana wasaaradda waxbarashadu ay markay manhajka sameynayso ay raacdo dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka sidoo kale heesta qaranka intaan heesta gelin xataa warqadda oo gudoomiyaha guddiga uu noo soo gudbiyey oo noogu soo gudbiyey laftirkeeda haddaad fiirisaan waxaa diilintu ay noqonaysaa iyaduna sidoo kale hurdi sidoo kale heesta qaranka Soomaaliyeed ee cashirka saddexaad ka ah heesta qaranka manhajka cilmiga bulshada cashirkii saddexaad fasalka afraad waxaa ku taala Soomaaliya tooso ardagana taasaa la baraa in iyadana la waafajiyo dastuurka qaranka sidoo kale qodobka toddobaad faqrada afraad xuduudaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaa la yiri waxaa laga soo qaatay dastuurkii 60kii dastuur cusub ayaa halkan yaala sidaa darteed haddii la rabo hala soo raro laakiin waxaan rabaa inaysan majhuul ahaanin ee meeshan ku cadaato wixii dastuurkii 60kii uu ka qabay si qofka dastuurka akhriyaba uu ogaado xuduudaha jamhuuriyaddu ay leedahay sidoo kale wadamanka xuduudaha nala leh waa la qoray hase ahaatee dadka Soomaaliya meeshaas waa ka maqan yahay dad dhuleedka aan ku fadhino waa in iyadana lagu cadeeyo sidoo kalena xuduudaha wadamanka aan la leenahay halkan ku xusan in iyaguna wadan walba xuduud aan la leenahay dhirirkeedu inta la eg yahay iyadana aan ognahay oo ay wacadahay si jiilka dambe aan uga tagno dhaxal ay difaacan karaan qodobka sagaalaad isagana oo ka hadlayay caasimadda dalka oo maalin dhaweed aan taabtay sababta maalin dhaweed aan u taabtay waxay ahayd wax kale ma ahayn anigoo og in laga hadlayo mabaadi'da guud ee dastuurka in halkaani intaan loo soo gudbinin muddo yar ka hor ay ku qorneed xulashooyinka ku yaala warbixinta nuqulka warbixinta ee naloo dhiibay oo 3 ah halkaana laga soo reebay waxaan guddiga weydiin lahaa marka maxaa looga soo reebay sababtu maxay tahay waxaan rabnaa sabab maangal ah oo sheegaysa in matalaadii iyo maqaamkii caasimadda Muqdisho loogu raray cutubka 5aad annagoo og qaab ay isku qaban karaan cutubka 5aad iyo caasimadda matalaadeeda in aysan jirin inay halkaas noo cadeeyaan annaga aan ku qanacno bulshada aan matalno bulshadana ay ku qanci karto هذا أمة سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته